musharaxiinta isku sidkanaya golayaasha wakiilada iyo golayaasha deegaanka ee gobolka Maroodi Jeex ayaa maanta taageerayaashooda kula hadlay magaalada Hargeysa. Musharaxiintan oo magacyadoodu ay kala yihiin Yaasiin Xasan Cabdilaahi oo u sharaxan golaha wakiilada doorashooyinka soo socda ee Somaliland iyo musharax Cabdilaahi Maxamed Rooble oo u sharaxan golaha deegaanka ee degmada Hargeysa ayaa maanta taageerayaashooda kula hadlay beerta xorriyadda iyo goobaha kale ee xafiisyada ay ku leeyihiin magaalada Hargeysa, kuwaas oo taageerayaashoodu soo buux dhaafiyeen goobihii isu soo baxa ee maalinta kulmiye ee Hargeysa, waxaana hadaladoodii ka mid ahaa maanta halkan waxaan uga mahadnaqayaa taageerayaasheeda sida mugga le uga soo buuxiyey beerta xorriyadda oo na tusay taageernimadooda iyo inay noo heelan yihiin inay noo codeeyaan aad baan ugu mahadnaqayaa. waxaan leeyahay idinka oo dadkii ugu tirada badnaa ahaa aad baan idinku mahadnaqaynaa. waxaananu idin leenahay maalinta uu codkuna sidaa maanta aad beerta xorriyadda u soo buuxiseen ee aad dadkii ugu tirada badnaa ahaydeen ina maalinta codkana sidaa ugu soo talagashaan. calaamadaydu waxa weeye kalluun. nin baa wuxuu yidhi kalluun meel dhow baa laga helaa, insha allah codkana meel dhow baanu ka helaynaa insha allah. ilaa xal istaabibahay dadku soo dhaweydii sugayeen waan imaansiin xafiisyadii degmooyinka oo kale xafiis walba mid soo abaabulay xafiis walba aad u soo abaabulay si heer sare oo qolkiiba boqol soo abaabulay oo balyanaya insha allah gulbeen loo jeeday insha allah dileeyla lambarkana inaan 207 ama 207 abka dahab